ayaa sheegaya in saacadaha soo socda gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo xilalka ka qaadi doona gudoomiyaashii hore ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaashii hore ee gobolka Banaadir ayaa habeennimadii xalay waxay xarunta gobolka Banaadir ku doorteen gudoomiye Taabit kaasi u doorteen muddada 2 sano ee soo socoto. Shakhsiyaadka xilalka laga qaadi doona saacadaha soo socota ayaa ah gudoomiyaha ee degmada Hodan, weliba gudoomiyaha degmada Wardhigle, kan Howlwadaag iyo Waaberi, degmooyinka Daynile iyo degmada Cabdicasiis, Dharkiile iyo degmada Yaaqshiid iyo weliba degmada Xamar Jajab. Waxaana la sheegaya in dhammaantooda xulufo la ahaayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit. Gudoomiyaasha degmooyinka ayaa intooda badan ka imaaday dalalka dibadaha, gaar ahaan kuwa qaniga ah. Lama ogo shakhsiyaadka kale ay arrintan salfa doonto, inkastoona la sheegayo in afhayeenka gobolka Banaadir asagana xilka laga qaadi doono. Xilka qaadis iyo xil isku dhiibis ayaa muddooyinka ugu dambeysay si xool uga socotay caasimadda dalka Soomaaliya, kuwaasoo laga xayuubinayo xilalka shakhsiyaadka aan isku siyaasadda ahayn ee haatan jooga xilalka dalka Soomaaliya. Wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad kala soo doontaa.